بسم الله الحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. وسؤالي جواب سida qoraalka ka muuqata walaalaha Facebook kaliya uga soo jawaabaya caawa halkan insha Allah ila socda. Marka ugu horeysa gabadhaanaytu waxay tiri waxaan ku riyooday shimbirka galeerka ma af carabi waa hudhud haddaan qaldaneen qaybta ee komitiga igu soo qoro. Shimbirka oo hudhudka loo yaqaano micnooyin badan ayay ku tilmaameen culimada riyooyinka fasiray. Qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu tilmaamaya dhaheen cilmi iyo aqoon. Qaar waxay leeyihiin wuxuu tilmaamaya diin yari. Sidoo kale wuxuu tilmaamaya shimbirkaanaydi akhbaar inaad maqlisid aramo cusub, wax kuugu cusub, akhbaar cusub. Akhbaarka mid farxad loo noqon karaa. Sidoo kale waxay tiri gabadhan waa isdagaalaynay kabacdi anaa ka guulaystay. Guulaysi noloshan way noqonaysaa. Waxay tiri waxan waa bartaa business yarna waa leh. Waxaa iska cad inaad nolosha la daalacdhacaysid. Ciriiri culeysi badan ay jiraan laakiin insha Allah guulaysanaysid. Laakiin waxbarashadaada iyo businesskaagan iyo ka mashquulinin dikriga rabbigaaga. Laano shimbirkaanaytu wuxuu kaloo ka hadlaya diin yari. Wallahu yaclam. Qofka xiga gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday anoo biyaha zamzamka wajiga ku dhaqanaya cabaya. Aragtida biyaha zamzamka gabadhan la guursanin waxay tilmaamaysaa guur nin wanaagsan, nin aad u wanaagsan inuu rabbi calaf kuugu daraayo oo yacni ahlul diin ah. Sidoo kale waxay tilmaamaysaa khayr iyo barako, toobad iyo hidaayad rabbi ka aqbalayo. Wallahu yaclam. waxay kaloo tilmaamaysaa xaj iyo cimro. يعني aragtida biyaha zamzamka aad u fiican yihiin. Wallahu yaclam. Gabadha waxay tiri waxaa ku riyooday anigoo wax hadiyad camal ah oo yacni kaadoo ku jiro la isiinaya. Qofkana ma arkay waxaan wixii ma aqaan laakiin waxaan aqoonsanahay riyada dhexdeed inay ahaayeen hadiyad okay ma soo raacin gabadhaanayta in la qabiyo in kale. Hadiyad maxay tilmaamaysaa? Hadiyad wax badan ay tilmaamaysaa. haddaan gabadha la qabin guuray tilmaamaysaa. Gabadha la qabo hadday ulaad raadistahay uuray tilmaamaysaa. haddii khilaafaad iyo mashaakil jira heshiisay tilmaamaysaa familka mise dadka ku dhow mise asxaabta oo kale. sidoo kale waxay tilmaamaysaa arsaaqad iyo waxaa kaloo tilmaamay farxad iyo arrimo wanaagsan oo qoyskaas mise adiga nafti ahaantaada kugu soo biirayo. Wallahu yaclam. gabadha waxay tiri riida way ugu soo noqnoqotaa. waxay tiri mar walba waxaan ku riyooday hal kab anigoo xiran mise hal kab aan la ahay aan raadinayo. waxay tiri garooba ahay. walaalayaal hal kab ma wanaagsano. hal kab yani waxay tilmaamaysaa ficlan maadaama ayna soo noqonaysa nolol xaalad adag inaa mar walba aad la nooshahay wax aad dhamaystirmaynin riyo aad ku riyoonaysa laakiin aad dhamaystirmaynin hadaf aad rabtid inaad gaartid aan suurtagelaynin mise guur iyo mashruuc aad galaysid aan toosaynin. والله يعلم. استغفار بدي وحبنا استغفار بدي. سورة البقرة آخر سهداد أبودد سدوك إن صدقوي اللبح لأنه سيدا بكبها إن أدوي سنتهي ما ونكسنه وحا ونكسن هداك كبها ويسي مسي كالومين مس هالكب آخرن تايك بعدي أكبتي هالشيء إن سدوك الوحا ونكسن كبها إن يكون أكادا كبها أركتودا حتى معها كبو قاب درن يو عريري أمسكاوا بين مفيعنا noloshaada nolol maalmeedkaaga ay ka turjumayaan kabaha sidoodaba. waxaa wanaagsan kaba kula eg, kaba quruxsan, kaba aad ka heshay yacni kaba nadiifsan aan go-sanin mise aan kaalumayno yacni haysatid ayaa wanaagsan markaa kaba aa arkaysid. haddii kabaa wax bay ka naaqusan yihiin mise cilad ba ay leeyihiin mise ay foolxun yihiin mise ay kaa yaryar yihiin mise ay kaa waaweyn yihiin mise ay go-ayaan adigoo xiran oo kale ma wanaagsano. sidaa darteed marka riyooyinka soo kale marka aragtaan istighfaar sameey. haddaa wax sadaqaysan kara sadaqayso. waxaa markaa awoodaada ay tahay sameey si ilaahay riyada maxay ahayd yacni sida dhibaatada markaa la nooshahay oo rabbi kaaga badbaadiyo farajkaaga kuugu furo. gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday wiilka xiriirka naga dhexeeyo caadi ahaana khilaafna ma dhex yaalin niyaddana kuma hiinin. waayo waxay maqashaa loo dhahay waxbada axaadiisa nafsi waay. in badanaa horta waa runay qofka xiriirkeeda inka dhexeeya waa axaadiisa nafs
okay gabadha riideed way dheereed laakiin ta muhiimadaan kasoo qaadanaya isbuucii hore riisaan oo kale aan soo jawaabay oo ahayd wiilka xiriirka naga dhexeeyo iska keendhatiraay sooma ahayn aragtida wiilka xiriirka idinkala dhexeeyo horta badanaaba axaadiisna sidaa sheegay maadaama ay soo raacayso way tiri niida ku mihinin laakiin haddaan idhaahno waa riyo kulli waa qaar badan asoona dhibaato aan jirin sidii gabadha isbuucii hore oo kale soo iskaa bedelaa mise weji ku bedela aanan ahaynoo caadi aad isku eedeen isku faraxsaneedeen waa qaar badan insha allah wallaahu yaclam gabadhan waxay tiri waxaa koryooday dhulgariir horta lambarka meelaa marayna ma aqaan idinka noo xisaabay riideed idan way dheereed laakiin ta muhiimadaan kala soo baxay le-ana waxay tiri riyada dhexdeeda waa soo kaca haddana waa ku noqona haddana dhulgariira arkaa marna gurigaa ku arkaa marna markaan banaanku baxa arkaa adee almuhiim muhiimad waxaa weeye dhulgariir wacayaadu bilah yani dhulgariir ma fiicno walaalayaal ilaahay hanaga badbaadiya run ahaan iyo macalaa riyadiisaba la-ano riyadiisa hataa ma fiicno okay dhulgariirka muxuu tilmaamaya dhulgariirka dhibaatooyin badan ficlan marka adiga riyadaha aragtid kabacdid inay dhibaatooyinkaasi aad la noolaatidaa macquul ah marka maadaama aad tiri yani waxba nooguma dhicin laakiin dhulka wuu gariirayay ilaah waxaan kaaga baryaa insha allah ilaahay dhibaatadiisa ha ku dhaafiyo haddaba horta sharna ma ahane geeri iyo dhibaatooyin waaweyn kuuga dhacaysa maahan laakiin dhulgariirka waxaa waaye azamaad yani marka dhulgariirka aragtid kabacdi waxyaabo badanaa noloshaada iska kaa bedelayo dad qaar waxay leeyihiin xanuuno u tilmaamaya qaar waxay leeyihiin xoolo la-aan asma maaliya horta aad xoolo la-aan yacni daruuf oo maadiyan ah oo adag marka waxyaabo kaloo badan wuu tilmaamayaa sidaa darteed dhulgariirka yacni riyadiisa ma wanaagsano waxaa kugula talinaya ayi qof oo riidaan arko isla markaa u arka mufasir waxbay u raadsanin rabbi ha ka magan galo sidoo kale dhinaca ujiiftada bedelanaysaa waxaa kaloo sameynaysaa istikfaar badan iyo sadaqada walaalayaal walaa cajaayibay sameysaa laano hadda anaga markaa maamahyaal waxaa jirtaan dhahno qofka markoo wax ku dhaca sadaqaa furate matalan sadaqaa ku baxday miya maqaan wax saas oo kale marka sadaqada saasay cajaayib u tahay dhibaatooyin badan iyo masiibooyin celisaa يعني طبعا يعني فضل يعني ربي ayaa nagaga xijaaba بفضل صدقada dhibaatooyin badan nagaga xijaaba okay awood yani ala khayr rabbi iskale rabbi awoodiisa ay ku dhacayaan laakiin fadliga sadaqada maaragtaa darteeda ilaahay masiibooyin badan oo naga qabtaa marka walaalayaal sidaasaan idinkala talnaa qof walba dhulgariir arka riidaha sahlanin bacda riidahaseyti wax badan yani waxaad sameysaan sadaqooyin istikfaar iyo hadday dunuub jirtay hataa way ka hadlaysaa haddii dunuub jirtay oo ka fogaasho diinta ay jirtay hataa midaas hataa way noqon kartaa inaad dhulgariir aa kuriyootid wallahu yaclam nambar 7 nambaradii hadda dib soo xasuustay gabadha aneyti waxay tiri waxaa kuriyooday anigoo walaashii u qabeynayo weli ma guursanin gabara ahay riyakal waxay kuryoota isla riida miyaa mise riyakal maqaan idoo gabar yar haysato walaashaa u qabeynaysid horta qabiiska muxuu yahay raaxatu baal xasilooni mise deganaashi iyo faraj bacda tacab khaasatan qof daal dareemay mise wax dareemay marka rubama adiga ehelkaaga aada caawin doontaa caawinaad adiga aada siisay xasilooni iyo deganaasho ay ku heli doonaan hadday tahay dhinac waxbarasho hadday tahay dhinac kale caawinaad nooc walbay noqon kartaa waxay kaloo tiri marka anigoo gabar yar haysto ayaan kuriyooday gabadha yar waxay tilmaamaysaa adduunka u qurux badnaan doona insha allah gabadha waa adduunkaaganu noqon doona mid aada u qurux badan khaasatan hadday gabadha gabar yaro daacad bariinimo yacni baraa ka muuqatay oo cunug yar aheedoo ilmo yaroo quruxsana aheed wallahu yaclam gabadha waxay tiri waxaa koriyooday gurigeygoo dabka kacay walaalayaal dabka iyo sheekadiisa baabkiisa intaana gelin koley qaar badanoo idinkada ka midaa way yaqaanaan micnaha dabka inaan faahfaahin xoog uma jeclay waxaan idinka codsanaya inaad like saartaan waxaa kaloo idinka mahad celinaa videogii ka horeeyey
falcelintiina laagtiina iyo daawashadiin aaday u fiicneed. waa mahadsantiin. qofkan bini aadanka u mahad celin, ilaahayna uma mahad celiyo. mahad celintan way wanaagsan tahay, nooc min al akhlaaq, nooc min al diin waay. aadaa u mahadsantiin. okay, dabka walaalayaal, dab haddaa kuriyootid gurigaago dabku kacaa, wallaahi ri wanaagsan maaha, khaasatan gurigaaga haduu yahay. haddaa riyo dab aragtid, ilaahay ka magangal, rabbigaa ka magangal. haddayna xadiisa nafsi ahayaa, haddii guriga mar aaslada ama ilmo ku gubtaan ama ilmo yayar dabshidaanoo waxyaabahaas qalbigaa ku jijiro adiga maalmo ka hor mise aad seexatid oo riidaa aragtid, taasoo kale xadiisa nafsi. laakiin adoo noloshaada waxaa ku jirin, aadan ahayn qof ciyaal dab u dirsado, adiga dab ka shito, adiga wax walba samaysto, laakiin haddana aad aragtay gurigaagio dabka kacay, rii wanaagsan maha. markaasoo kale marka waxaad sameynaysaa sidaa hore idinku sheegay, istikfaarta, dacooyinka, maqaariyooyinka maanta aan soo fasir, yani nasiibkeyga intaanu ilaahay ila kulmi inay ahaadaan riyooyin aada loogu farxin. wallahu yaclam.